Jawaari oo mooshinka laga keenay iyo xildhibaanada taageersan oo dhinaca iyo sidoo kale dhinaca kale oo ah kuwa mooshinka keenay ee raba in ay meesha ka saaraan gudoomiyaha golaha shacabka hoggaanka u haya muddada 5 sano ah. Haddii aan ku horeyno dhanka gudoomiyaha mooshinka uu ka yaalo Jawaari ayaa warqad qoraal ah u diray qaramada midoobay Midowga Afrika AMISOM deeq-bixiyaasha caalamiga ah iyo dhammaan safiirada beesha caalamka ee Soomaaliya ku sugan. qoraalkan ayaa ujeedkiisu ahaa in codbixinta mooshinka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ay ka dhacdo teendadii lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee loo yaqaano hangarka Marina Gate ama Afisioni, isla markaana ammaanka doorashadaasi gacanta ay ku qabtaan ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga dalkeena. codsigan oo uu jeediyay Professor Jawaari ayaa beesha caalamka sida la tilmaamayo aqbaleen in si loo ilaaliyo dimuqraadiyadda ha yeeshee ay u dhacdo codbixinta xor iyo xalaal isla markaana qarsoodi ah. xogtan oo ay heshay idaacadda Kulmiye ayaa looga dalbaday ururada bulshada rayidka ah iyo kormeerayaasha caalamiga inay gobjoog ka ahaadaan codbixintaasi maalinta ay dhacayso. waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in uu socdo qorshe lagu diyaarinayo dalabka Professor Jawaari ee laga aqbalay. dhanka xildhibaanada mooshinka ka keenay gudoomiye Jawaari ayaa wada sida aan wararka ku helayno qorshe ay ku doonayaan in sida caadiga ah kulanka golaha shacabka ee codka looga qaadayo mooshinka uu ka dhaco xarunta golaha, in cod qaadistu ay noqoto mid gacantaag ah iyo qodobo kale. waxaa wali dhanka kuwa raba inay meesha ka saaraan gudoomiye Jawaari ay wadaan aruursiga xildhibaanada si ay u helaan ugu yaraan 184 xildhibaan oo ah tirada loo baahan yahay si kalsoonida loogala laabto Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. dhinac waliba oo ka mid ah kuwa isku haya xiisada siyaasadeed ee ka taagan golaha shacabka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay ay dhankooda guusha ku mari lahayd, iyadoo loo badinayo in maalmaha u horeeya ee toddobaadka soo socda la qabto kulanka la wada sugayo ee cod qaadista